irdihii banaana ma dad oday baa jira ma ururkaa la ii dabay ma afreer magaalo leegu aamusinba maaniga irdhoobo samir iga idlaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay ayriidi banaana ma dad oday baa jira ma ururkaa la ii dabay ma afreer magaalo leegu aamusinba ma ururkaa la ii dabay ma afreer magaalo leegu aamusinba maaniga irdhoobo samriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay waxay ahayd qiso jacayl oo aad iyo aad u xanuun badan qisadaasi jacayl waxa ay ka dhaxdhacday laba fanaan ama laba hobol oo kamid ahaa kooxihii Soomaaliya waxa uu ahaa abwaakii weynaa agaasimihii iyo waliba maareeyihii tiyaatarka iyo gudoomiyihii kooxda Waaberi Maxamed Ciise Gane ayaa isagu jacayl laxaad leh oo ah mid qisooyinka buugaagta sida Qays iyo Leela iyo Cantar iyo Cabla lagu xardho jacaylkaas ayaa caan ka ah geyiga Soomaaliyeed iyo waliba fanaaniinta Soomaaliyeed dhaxdooda Faynuus ayaa towgii koowaadba waxa ay si kal iyo laab furnaana ugu soo dhaweysay jacaylka uu qaaday abwaanka Maxamed Ciise Gane wuxuu ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwa qisada jacayl ku cabira suugaan iyo waliba afmaalnimo waxa uu ahaa gudoomiyihii kooxda Waaberi Allah u naxariistay wuxuu ku dhintay wadanka Nigeria mar ay u tageen kooxdaasi show halkaasi lagu qabanayay shil ka dhacay halkaasi ayuu ku dhintay abwaanka sida kalena waa ninka heesta beledweyn ee Hadraawi uu sameeyay lagu magacaabay Sawtaliya Baaso ba anoo warmoogi taydii ma beeneen waa ninkii agaasimaha kooxda ka ahaa ee diiday inay kooxda sii joogto beledweyn halkaasoo Hadraawi uu doonaya habeenka xiga inuu gabadha kula kulmo taa uu abwaanka ka diiday ayuu heesta ku cabiray isagoo leh Sawtaliya Baaso ba ana warmoogi taydii ma beeneen haddaba abwaankaasi weyn ee Maxamed Ciise Gane ayaa isagu waxa uu la hadlay Faynuus Sheekh Daarisi macaan badan iyadoo jacaylka soo dhaweysay waliba nasiirka lab furnaana saddex hees oo caan ka ah geyiga Soomaaliyeed ayay qisadaasi aad iyo aad u taabanaysaa abwaanka ayaa isagu heesta koowaad ee aaminay xusuusnow inkastoo ayaamahan arintaadu adag tahay aadamigu siduu qabo amay aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay ifka intaan ku noolahay ka ooli maaye inkastoo ayaaman arintaadu adag tahay aadamigu siduu qabo amay aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay ifka intaan ku noolay ka ooli maayo heestaasi aamina abwaanka wuxuu kula hadlayaa inuu si dhab ah u jecel yahay inuusan dooneynin inuu lumiyo iyo waliba inuu ifka intuu ku nool yahay iyada qof aanan ahayn uu jecel iyo nolol toona la wadaageenin abwaanka ayaa waxyaabaha uu heesta ku soo qaaday waxa kamid ah cajiibka ah ma balan ay lahaayeen habeen inuu waliba heestii ku soo qaado isagoo leh عدي وحن كوينابا صوري تردو السوقي ما شديني أربعة ذهبينكي أفر سامر بيتاي أيوة أهاتي أمنا يسوسني sida ay sheegayaan dadka suugaanta Soomaaliyeed ka agdhow ama qisadaasi jacayl la socday waxa ay leeyihiin waxa ay balan ku lahaayeen isu imaansho bar extra loo yaqaanay ee ku yaala kasoo horjeedka Shaneemo Xamar haddaba sidaas ay tahay fanaanada abwaanka ayaa ka shakisnaa in ay jacaylka ka cagajiideyso waxa uu sheegay inay aad iyo aad ugu jecel yahay Faynuus ayaa iyadu si dhab ah uga cagajiideysay la socodka ama inay jacaylka la wado abwaanka habeenkaasi ballanta jacaylka abwaanka iyagoo ballansan 4 saac habeenimo ayuu 1 saac habeenimo sii tagay baarkii ay ku ballansanaayeen
weliba halkaasi sii fadhiistay iyadoo ballanta ay ka dhiman tahay 3 saac oo kale. haddaba sidii uu sugayay ayaa la gaadhay ballantii xilligii ballantii 4 saac habeenimo markay isku taagtay gorsheegtada ayuu abwaanka bilaabay inuu eego bal inay soo socoto malaha oo maysan imaanin. 30 daqiiqo kadib ma soo socoto malaha way soo daahaysaa ayuu is yidhi bal sug 1 saac kadib maysan gimaan. markay isku taagtay saacadii 12 habeenimo oo aysan soo istaagin ayaa shaki galay. banaanka ayuu soo istaagay sida dadka jaceylkaasi ka agdhow ay sheegayaan maysan imaanin 1 habeenimo ama 7 saac qofba siduu u yaqaano. haddaba sidaas ay tahay ayaa waagii 3 habeenimo ayuu meesha ka caga jiiday isagoo qalbi jab weliba ogaaday jaceylka uusan daacad ka ahaynin. abwaanka ayaa isaga huleelay isagoo weliba aad iyo aad u qoomameynaya jaceylka dhabta uu qabo iyo sida fudud ee fanaanada ay isaga ugu ciyaartay xataa aysan u soo sheegin ballanta in ay ka baaqanayso ama aysan imaanaynin ama xataa aysan odhanin jaceyl kulama wadayo. isagoo aad iyo aad u xanuunsan xumad xina ay hayso ayuu abwaanka halkaasi isaga tegay. haddaba abwaanka ballantaasi ay kaga baxday Faynuus Sheekh Daahir weliba habeenkii dhanna uu sugayay ilaa 3 habeenimo ayaa wuxuu xaafadiisa yimid isagoo qalbi jabsan oo mamana ka qaaday ballantaasi cahdigaasi uu la galay inantaasi iyada jaceylkeeda dhalanteed ku yahay oo afka aan dhaafsiisnaynin. abwaanka ayaa subaxii waxa uu ergo iyo weliba dad la hadla Faynuus iyo waxa ay damacsan tahay soo weydiiya u diray Faynuus Sheekh Daahir. Faynuus wax jawaab ah oo ay ka soo bixisay malaha isagoo weliba u qaatay in jaceylka ay sheegayso afka baarkiisa uusan dhaafsiisnaynin welibana ay ku dheelayso. abwaanka ayaa isagoo jooga wuxuu sameeyay hees gardhigasho ah oo u gardhiganayo Faynuus isagoo ka hadlay ballantii uu la galay habeenkii Arbacada ahaa ee uu goysay. amarkan ku farayo axdigaynu dhigani Arbacada habeenkii 3 ilowde isniin miyaan ka dhiganaa. amarkan ku farayo axdigaynu dhigani Arbacada habeenkii 3 ilowde isniin miyaan ka dhiganaa. isagoo welibana caddeeyay in maalmaha Ilaahay isugu mid ay yihiin welibana uu doonayo inay maalinta iyada jeceshahay u timaado. Soomaalida iyo weliba culimada diinka Soomaaliyeed sida ay qabeen maalinta Axadda iyo maalinta Arbacada waxay u yaqaaneen maalmaha ballamada iyo in kitaabka la bilaabo ama wax kastoo la bilaabay labadaas maalin ay ku fiican yihiin. haddaba wuxuu leeyahay maalmaha Ilaahay waa isugu kaymid inkastoo Axaddu la yiraahdo iyo Arbacadu waa maalmo aad iyo aad u wacan haddana anigu maalmaha Ilaahay waa isugu kaymid. irdihii banaana ma dad oday baa jira ma ururka la ii dabay ma afreer magaalo leegu aamusin baa maaniga irdhoobo samir iga idlaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay. ay riidi banaana madadooday baa jira ma urka la ii dabay ma afreer magaalo laygu aamusin baa maaniga irdhoobo samriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay haddaba ugu dambeyntii Maxamed Ciise Ganey waxa uu caddaatay in Faynuus Sheekh Daahir ay ku wada beenbeen iyo weliba jaceyl aan afka dhaafsiisnaynin isagoo weliba noloshiisa ag dhigay jaceylka uu qabo darteed. Faynuus ayaa iyadu waxba ka soo qaaday abwaanka iyo weliba agaasimaheeda intaba taasoo ahayd wax lala tacajubo in qof sidaas ku jecel aad weliba ku dheedheeshid. abwaanka ayaa ugu dambeys yaqiinsaday in Faynuus waxeeda aysan afka dhaafsiisnaynin wuxuuse go'aan ku gaadhay inuu ugu dambeystii inta la hadlo xaqiiqda u sheego runtana taabsiiyo kabacdina uu ka socdo jaceylka dhalanteedka ah ee ku maaweelinaysay. abwaanka ayaa isagoo si toos ah ula hadlaya Faynuus runtana u sheegaya waxa uu yiri. ma ogtahay
siraade Soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee habla kulaasin ma jira moogtaa siraade Soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee habla kulaasin ma jira وننسى وإيجني وسؤالك لذا معك قاسهان سدي وننسى وإيجني وسؤالك لذا معك قاسهان سدي سفر مليك عيكوي وسداي إلى قبو إلى قبو هاي وسيدين haddaba ugu dambeystii Faynuus heestani markii uu si dhaba kaga hadlay ogaatana inuu abwaanka go'aan gaaray ayay u soo dabacday iyadoo ugu dambeystii go'aan ku gaartay inay jaceylka la wadaagto lana wado qofkan sida dhabta u jecel oo wax walba ay daacad ka yihiin Faynuus ayaa ugu dambeyntii abwaanka hawsha la qabatay walibana guursatay ayaa wuxuu noqday seegeedii laakiin nasiib xumo Nigeria ayuu ku dhintay shil ka dhacay halkaasi Nigeria ayuu ku dhintay shil halkaasi ka dhacay Soomaaliya markii ay ka qayb galeysay showgii lagu qabtay wadankaasi oo ay casuumaad ka heshay Allah u naxariistay Maxamed Ciise Geene iyo Abgaal Saciid ayaa ku dhintay halkaasi oo ahaa madaxdii hogaaminaysay kooxdaasi fanka Soomaaliyeed ee ka qayb galeysay showgii iyo martiqaadkii Nigeria intaas aynu kusoo gabagabeynayna qisadaas xanuunka badan ee heesaha saddexda ah laga sameeyay ee uu sameeyay abwaanka weyn ee Maxamed Ciise Geene dib dambe intaynu ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kala ah ee qisa sidan oo kala ama ka xiiso badan channelka like iyo subscribe toona ha ka iloobin nabadiino nooli kulante iyo amaana Allah